inaan qabiilka dhaafno dheregna aynu gaarno inaan qabiilka dhaafno dheregna aynu gaarno cudurka aan dhammayno haddii dhereg la doono oo aan dhib loo adkaysan oo aynu meel dhacdiidno haddaan dhaqan wareegno oo aan dharkeenna xoro haddaan dhaqan wareegno oo aan dharkeenna xoro oo ay dhashii ilowdo runtii ururka waxaa la aasaasay 2005 bishii 8 waxaana lagu aasaasay magaalada Sheffield waxay isugu yimid dhalinyaro aad u tiraya oo gaarayay waxaan toban gaaray ujeedada aan markii hore isugu nimid ma ahayn hawsha aan maanta halkan u fadhino laakiin waxay ahayd wadankan aynu deganahay dhalinyaradeena ama dadkeenu gobolka doonaan ka yimaadaan aad baynu ugu baahsanahay iskama warhayno waad ogtihiin dhibaatooyinka taagan maanta waxa laga yaabaa qof kasta oo halkan fadhiyo inaga mida inaynu isku haysano dadka faamiligeenu inagu haystaan maxaa idila soo hadli weyday maxaa idila soo xiriiri weyday waynu ognahay waqtigu siduu adag yahay marka waxaan istusnay waa intaynu isu nimaadno aynu iska warhayno keena baahan keena dhibaataysan keena sida wadanka looga yaqaano nolosha ma garanaysaa ay ku adag tahay aynu iska warhayno intii markaan isla qaadanay waxaan isweydiinay waa taasoo qoraynu ku koobnaanaa inagunbaa marba intaynu isu nimaadno iska warhaynaa mise maanta inagu magaa waynu ladanahay oo ninkii wax baranaya uu baran karaa ninkii wax doonaya inuu cuna bariiskiisa uu helayaa uu shaqaysan karaa gurigu seexda uu helayaa caafimaad uu helayaa inagu yaynaan isku koobnaanine dad baynu ka nimid dad baa ina sugaya oo runtii inoo haystaba inaynu nahay dadka ay maanta soo eegayaan ay sideeyihiin iyagaa wax idiin qaban karaa ma isku daynaa inaynu dadkeennina wixii awoodeenna aynu qaban karno aynu qabano runtii nasiib wanaagtaasina waxay noqotay waxyaabaha isweydiina waxaa ka mid ahayd maxaynu u qaban karnaa maanta waynu ognahay qof kastoo inaga mida badankeena waxaa laga yaabaa inaynu biil bixino ilaayowtidna waynu wada ognahay qof kasta wax ka go-aya aada bay u adagtay maxaynu bixinaa runtii waxaan istusnay aanu ku bilownay oo maanta hadafka ururka u yaadana horta cid kale inaan waxba weydiinine inagu aynu ka bilowno jeebkeena inaynu wax ka bixino taas baananu ku bilownay oo ahayd 10 gini inaanu iska qaadno hawshaana aanu ku qabano horta hawshaas baanu ku bilownay maantana waxaan u malaynayaa in badan oo idinka midi intaad ogtihiin ciddii 10kaa ahayd maanta runtii gobol kasta oo ka mida wadankan aynu deganahay runtii dabaaka dadka intaa utada badan ay fadhiyaan magaalo kastaan isugu tagnana dad intaa leeg iyo ka badan ayaa isugu yimaada waana waxaan filayo runtii inay tahay wax aada loo qiimeeyo qadarinteedana halkani waa cusbitaalkan cusub ee la magac baxay Maandhaye looguna talagalay dadka wax qaba ama haddii la kaga maskaxdooda ka qaba in lagu daweeyo ama lagu hayo waa cusbitaalka Maandhaye cusbitaalkan Maandhaye wuxuu dhinaca ku hayaa cusbitaalka guud gobolkan Togdheer ama magaalada Burco aan idhaahdo oo kaasa deerka ayaa u dhaxeeya dadkani halka fadhiya waa dadka qaarkood ay wax qabaan caadi ahayn qaarna ay yihiin dadka haya
dhiiggana ku waasheen ها سودا dadka marada ma istaaga ما يسكفر يور محاضر يمكن هو تذكر jaamacadda markaan anoo ka soo baxnay ها waxaan ugu talagalnay inaanu ardaydu dhirigto waxba barato jaamacad baa laynoo sameeyey jaamacaddeenu way noqotaa jaamacadda cilmi sayniska yaanay noqon jaamacad meel kale ku ordayso macallinkaygu waa aadan tarab halkan u jooga waa ninka la yidhaahdo dad qal ka kale waa hamashool dalku waa nabad qab macallimiintii way joogtaa xasan kana way yar xanuunsanayo dadku u waashaa laakiin waxa weeye raashinkiisa hilibkiisa yani si waxa iga maray iyo mushaarkayga waxa iga day keena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laba qaybood ka kooban yahay qayb waxa weeye qaybtii loogu talagalay meesha inay fidinka iyo wax ka isticmaalaan oo aan magaalo ku soo qaadno qaybina waxa weeye qaybta hayse ee waalidiinta ama se family-ga oo iyagu soo raaca dadka marka imika waxay u badan yihiin dadkii liisgaraysnaa muddada dhowr iyo 10 sanadood ahayd haddana markii dambe abaalgud looga dhigay iyagu meesha ka sii qayb galaan 3 bilood ee meesha aanay inuu official-ga ay u furan tahay iyadoo 3 bilood ka bacdina official loo furi doono عليكم مثلا هاي محمد هيسا بل شورن خير هاي محمد هيسا واتقب هاي سيدات هاي مكان ونظرنا هاي الشيء ده حوريس waxay dadku ku yiraahdaan وانا على ذاك وانا على هرقة سبقة كريم بان لا سيايو كريم كنا وكو حنوسنا dadku waxay ku yiraahdaan عوانا دمان يا شيد يا دغخان بين لا دعان والله بلا halkan baan ugu talo kala imanka waxay ku yiraahdaan abdul qashuuc waa limanaya ay imanka waxaan sileeyahay maamad yar ama goofiyad yar yaa ku siiya هي مكاي كلمه انا هنا قبح صح goofiyad yar baa imanka sileeyahay jab kafeeda ana ku siinaya soo dooda صح maxamed xuseen weeye waxay ku siinaya kafeeda عبدي هاي عبد الرحمن بالله عبد الرحمن هاي سيدات يا عبد الرحمن وانا قد نوع ستة ايوه 5 سنة ايوه سيدات يا عبد